Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada casharada taxanaha ee Class Academic and Technology. Waan ku soo qaadanay software kala duwan sida film editor-ka iyo design-ka iyo casharo kala doora. Kulanti wanaagsan kusoo dhawaada casharada taxanaha ahaa ee software-ka Adobe Premiere Pro. Magacaygu waa Ustaad Cabdinaasir Axmed Jaamac. Maantay waxaan casharkeena ku falaqayn doonaa hadduu Ilaahay idmo in aan background-ka bedelno oo background-kan ka dambeeya qofkan shaashada ka muuqanaya inaan color ka dhigno ama nooc kale ka dhigno. Color-ka aan rabno ayaan ka dhigi karnaa ama waxaan ka dhigi karnaa meel cagaar ah, meel madow, color alla color-ka rabto ayaad ka dhigan kartaa. Maanta waxaan bedelaynaa background-kaas dambe sidaan hore kugu sheegay ayaan bedeli doonaa. Kadibna waxaan samayn doonaa inaan save gareyno muuqaalkan sameeyno inaan save gareyno. Haddaba aan soo qaadano dhowr shay oo aan ku bedelayno background-ka. Marka koowaad waxaan soo qaadanaynaa title. Waan doonaynaa inaan background-ka ku bedelno. Title-kii ayaan ku dhufsanay. Kadibna title laba uu noo soo qoray sidiisa noogu daa. Waxba ka bedeli mayne halkan ayaan nimid. Kadibna waxaan niri waxaan ku jiidnay halkan ayaa waxaan ku jiidnay inaan ka dhigno triangle inaan rectangle ku sameeyno afar gees ah. Markaan saa ka dhignay ayaa waxaan ka dhigaynaa color-kiisa ayaan bedelaynaa. Color-ka waxaan ka dhigaynaa blue oo kale ayaan ka dhiganay ama blue xigaan blue wax ka dhigtaa cirka u eg. Kadibna okay waan niri blue-gaas ayuu noo noqday. Kadibna waan iska kansalnay. Kadib waan soo qaadanay waxaan dhignay muuqaalka hoostiisa ayaan dhignay. Waan ku kala bixinay shaashada inta in leeg baan ka dhignay. Okay marka kan waxa noo muuqda qofkan wuxuu ku taagan yahay meel cagaaran ayuu taagan yahay. Waxaan rabnaa inaan helno color-ka ka shisheeyo oo sida u muuqanaya inaan helno ayaan u baahanahay. Haddaba marka halka joogno waxaan leenahay waan dooranaynaa muuqaalkii aan wax ku bedeli lahayn baan dooranaynaa. Halkan waxa iga soo baxday shax kala duwan ayaa iga soo baxday ama list ay iga soo baxay. Kuwaana marka waxba laguma bedelo. Waxaan raadsanaynaa madaxa loo yaqaan effect. Kani waa madaxan halkan jooga waxa weeyaan project-geeni. Tan waxa weeyaan qayb kale oo computer-kii meel wax ka soo qaadan lahaa sida meesha wax ka soo qaadan lahaa import ka soo oran lahaa weeyaan iga cancel-kan ma rabo. Kanina waxa weeyaan library aan u baahani. Waxaan u baahanahay kana masana kana soo baxay oo information ah waxyaalaha soo qaadato sheegaya kana ma rabo igu gudbi. Waxaan raadinayaa inaan helo effect inaan helo u raadinahay. Effect markaan helo waxaan raadinayaa magac ayaan qorayaa oo aan doonayo inaan color-ka ku bedelo. Waxaan leeyahay Altera ULT markaan aan helo halka waxa igu qoran hoos meesha ugu hoos waxa ku qoran Alter key ba ku qoran. Alter key markaan helay waa soo jiidayaa. Waxaan dul saarayaa muuqaalkii meeshu noo yaala ayaan dul saarayaa. Markaan dul saaray muuqaalka waxba iskama bedelin laakiin halkan waxa iga soo baxay listiga ee waxa igu soo darmaday qaybtan la yiraahdo key color. Qalinka ayaan ku dhufanayaa. Qalinkaas markaan qaato color-ka ka shisheeya ayuu halkan noogu muujinayaa. Qalinkaas aan sito muuskii qalin buu noqday ayaan muuska shaashada dhexdeeda ku siinayaa. Waxa dhacday qofku wuxuu taagan yahay meel kale oo ka duwan color-ka awal uu taagnaa. Waxa ka muuqda ninka meel wuxuu taagan yahay color ah oo waliba blue uu taagan yahay oo gacanta ka taagtaagaya. Okay color-ka saasan u bedelnay. Haddaan doonayno marka inaan si kale u bedelno Ctrl Z baan leenahay. Ficilkan sameeyno waa ka noqonay waana tirtirnay title-kii aan soo qaadanay waa ka saarnay meesha. Marka hadda muuqaalkii bisa noo soo haray. Waxaan tagaynaa import waxaan tagaynaa project-geena ayaan tagaynaa. Kadibna waxaan leenahay import waan leenahay noo soo gali. Shaashadan waxaan u raadsanaynaa. Waxaan soo qaadanaynaa maxaan ku araahdaa
mid ka mid ah sawir ayaan u baahanahay, wax kale uma baahni. Picture kana kaleetan soo qaatay, sawirkaa ka muuqanaya ayaan soo qaatay. sawirkaa ayaa buu noo noqday. sawirkaasaan soo jiitay, waxaan soo dhigtay shaqsigii meesha sawirkiisa ka muuqdo hoostiisa ayaan soo dhigtay, waana ku kala baxshay. isagii waxba ma bedelmin, marka sidiisa u muuqdaa. waxaan dooranayaa qofka meeshuu noo taagnaa, amase waxaan dooranayaa videogii qofka ayaan dooranayaa oo aan doonaya backgroundka ka bedelo. kadibna waxaan kusoo noqonaya effectiga ayaan kusoo noqonayaa. markaan effectiga kusoo noqdo waxaan qorayaa alter key. alter waxaan kusoo qaadanayaa ult. markaan araahdo waxaa noo soo baxaya maxaan ku araahdaa halkaas wuxuu noo soo baxaya alter key. waa soo jiidaynaa, waxaan dhex keenaynaa muuqaalka dhexdiisa dhag markaan ku siino ayuu halkan waxaa noogu soo dhigayaa shax baa naloo soo bandhigayaa list. qalinkaasaan qaadanaynaa, qalinkaasaan backgroundka dhexdiisa ku dhufanaynaa. marka waxaan dhacday shaashad madow inuu qofku saaran yahay, shashadiisana ay ku aadan yahay sawir yar oo shashadiisa ka muuqda. haddaba maxaan sameynaynaa? sawirkaas inaan la ekaysiinaan rabnaa shaashadoo dhan. sawirka ayaan gujinaynaa. markaan sawirka gujino, awal wuxuu ahaa kani qofkii uu ahaa, meeshu sawir muuqaalkiisii uu ahaa. kanina waa picture-kii ka hooseeyay oo aan doonayna inaan background kaga dhigno. markaan picture saas u doorano waxaan furaynaa ficta yar oo motionka ka horeysa ayaan furaynaa. kadibna waxaan leenahay sawirkaa soo weyne waan leenahay, soo weyne. shaashada dhammaa u qabsada soo ma arka. okay, marka maxaa arkaysaa qofkii inuu taagan yahay, meelna gacnaha kasoo taagayo. waayahay, waad ujeedaa meeshaan. marka waxa weeyaan background baa u sameynay oo qofkii waa ka bedelnay, backgroundka ka shisheeyey marka hore waa ka bedelnay. backgroundka sidaasaa loo bedelaa. waayo intaas backgroundka noogu dhammaaday. marka cashirkeena gangoydiisa sida aan kugu sheegay, waxaan rabnaa inaan save gareyno. muuqaaladii waa samaysay, muuqaalka waa qurxisay, qoraalka waan ku samaynay, backgroundka waa bedelnay, maxaa la yeelin jiray looga amase qayb ka mid ah waa samaynay oo soconaysa. ugu dambeyn backgroundka waa bedelnay. marka waxaan doonaynaa inaan save gareyno. haddaba see u save gareynaynaa? Adobe Premiere Pro marka la joogo waxaan sameynaynaa file ayaan gujinaynaa. file markaan gujino waxaa noo soo baxaya listigan dheer ayaa noo soo baxaya. import waa meesha haddana sawirada muuqaalada kasoo gashanayna iyo sawirada oo ah control I amase import. laakiin hadda waxaan u baahannahay export oo ah waxaad banaanka loo bixinayo computerka laga dhex saarayo. importna waa computerka soo geli, exportna waxa way ka saar. export markaan dooranay waxaa ii soo baxay list kale, qaybta ugu koreyso oo ay ku qoran tahay media ayaan ku dhufanaynaa, ama control M baan qaban karnaa. mediadaas ayaan ku dhufanay, waa sugaynaa ilaa uu noo soo baxdo bookis noo sheegaya meesha sawirka aan dhigan lahayn iyo muuqaalka siduu noqon lahaa. haddaba waxaa noo soo baxay bookis halkan uu muuqaalka ku samaysan yahay. halkaa kore ayaan gujinaynaa. markaan gujino waxaan ka dhiganaynaa h.264 ayaan ka dhiganaynaa. waa qaybta koreeto oo formatka ah. halkan ayaan gujinaynaa masana. halkan marka gujino waxaa ii soo baxaysa qoraallo aad u tiro badan baa ii soo baxaysa. waxaan ka sameynayaa midkood daan ku dhago. waxaa laga yaabaa inay waxaan rabaa muuqaalka qurxintiga dhammaantood muuqaalada oo fiirsano laga dhigi karo wey. hadda Android iyo telephone, Android waa ujeedaa, Amazi waa ujeedaa. marka waxaan doonaynaa inaan falaaraha ka socono computerkeena falaarihiisa inaan ka socono arrayga. hoos baan u soconay. waayahay, halkaas soconay. markaan soconay qaybta ugu dambeysaan sii maraynaa. okay, marka qaybtan HD-ga waa high definition kan soo galnay. high definition baan ka dhiganaynaa. marka high definition kan waa adeegsan karaa, laakiin aad buu u weyn yahay. marka aan waxaan adeegsanayaa high definition kan oo ah 720p 25. ka ayaan doortay. markaas kaas doortay waxaa sawirkii sidiisii muuqaalka u samaysan yahay. halkaa waa doortay. halkaan ayaan gujinayaa sequence-ga ay ku qoran tahay baan gujinayaa. marka halkaa gujiyo waxaan leeyahay magaca aan u bixin lahaa. waxaan leeyahay casharka magaca ayaan u bixishay. meeshaa dhigan lahayd waa halkee? desktop-ka oo kaleeto ayaan dhiganaynaa. waan niri desktop-ka hadduu naga maqan yahay waan raadsanaynaa. hadduu desktop-ka naga maqan yahay halkaasaan ka raadsan karnaa. halka ayaan ka raadsan karnaa. desktop baan soo niri.
desktop waa kan hadda la keenay kadibna wuxuu leeyahay videogaaga files wuxuu noqonayaa mp4 buu noqonayaa kadibna okay baan leeyahay save baan leeyahay save markaan araahdo weli save maaha oo muuqaalkii ii samaysmi maayo halkan inta kale waxba laga bedeli maayo muuqaalkay wuxuu noqonayaa files size-kiisa wuxuu noqonayaa 29 megabyte buu noqonayaa kadibna waxaa leeyahay export oo ah ii save gare marka export araahdo way sugayaa ilaa ay halkaa soo buuxsanto encoderka markuu halkaa uu tago 100% uu noqdo muuqaalka taas ugu save gareysan yahay waana daawan karaa kowda labada gaaro waad sugaysaa waxa laga yaabaa inuu computerkaagu daqiiqado qaato waxa laga yaabaa inuu computerkaagu 2 saac qaato waxa laga yaabaa computerkaagu inuu 15 daqiiqo qaato computerka si xisay ku xiran tahay casharkii maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa ee ahaa Adobe Premiere Pro casharkiisa 7 waan ku soo qaadanay sidii background-ka looga bedelo videoga iyo waliba sida loo save gareeyo waa inoo casharkaas sideedaad haddii Ilaahay idmo haddii channelkan aad ku cusub tahay fadlan ha hilmaamin inaad subscribe tirahdid asxaabta kale ee doonaysay inay film editor-ka bartaan aad u share gareysid akademiyada muuqaalada iyo design-ka Ikhlas Academic and Technology